anigoo ku hadlaya afka guddida fulinta xisbiga kulmiye gobolka Togdheer waxaan kaga hadlayaa shirkaygan jaraa'id war xalay toole ku soo baxay meediyaha ku jiray oo sheegaya in 3 xubnood oo kamid ah guddida fulinta xisbiga kulmiye gobolka Togdheer ay 3 xubnood iska casileen warkaas runtii waan beeninayaa warkaasi sida loo sheegay ama ay meediyaha loo galiyay wuu ka bedelan yahay waxa shaaciyay inuu ka baxay xisbiga kulmiye iyo xilkii uu ka hayay guddida fulinta xubin kamid ah guddida fulinta oo nala shaqeynayay saaxiibkayo Axmed oo runtii in badan nala soo shaqeeyay si wanaagsan aanu soo wada shaqeynay qofku sida aynu ogsoonahay waa xor wuxuu xor u yahay cidda uu taageerayo iyo xisbiga uu dhisayaba xor buu u yahay laakiin waxa reeban in dad inta laga soo ururiyo magaalada meediyaha dabadeedna lagu qabto oo teetal aanay lahayn ama xil aanay lahayn ay ku hadlaan ama ay meediyaha geliyaan runtii arrinta waxba kama jiraan xubin kamid ah guddida fulinta ayuu ninkaasi ahaa xor buu yahay fikirkiisa iyo mabdi'iisa meesha uu ku biirinayo xisbiga kulmiye taageeradiisa iyo awoodii uu ku lahaa gobolka Togdheer wax iska bedelay ma jiraan meediyaha ka markhaatiya labada xubnood ee kale la sawirnaa xubinta kamid ahayd guddida fulinta waxa weeyaan uu taageerayaasha xisbiga kulmiye bay kamid ahaayeen laakiin waxaan halkan ka qirayaa in aanay wax teetalo oo ay ka hayeen ama wax xilaho ay ka hayeen xisbiga kulmiye gobolkiisa Togdheer in aanay jirin baan qirayaa